السلام عليكم. lix xirfadood uu qof kasta jecel yahay inuu barto, laakiin dad yar oo bulshada ka mid ah ayaa ku guulaysata. Lixdan xirfadood qof kasta oo adduunka saaran ayaa jecel inuu barto, laakiin boqolkiiba 3 oo bulshada ka mid ah ayaa ku guulaysata inay bartaan. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Nambarka koowaad xirfadda wada hadalka. Adduunka waa suuq ha ahaado si toos ah ama si dadban. Qof kasta wax buu iibsadaa, ha ahaado adeeg ama badeecad. Sidaa darteed waxaa lama huraan ah inaad yeelato xirfadda wada hadalka ama wax loo yaqaano gorgortanka. Tusaale, waxaa laga yaabaa qof inuu wax ku soo iibsado lacag yar, midna laga yaabo inuu lacag badan wax ku soo iibsado iyadoo la wada iibsanayo hal shay oo isku mid ah. Ama si kale haddii aan u dhigno, qof waxaa laga yaabaa inuu gartii hal mar galo si qurux badan ku dhameeyo, qofna laga yaabo inuu awood u lahayn inuu xalliyo arrin aad u yar. Xirfadda wada hadalka waxaa looga baahan yahay dhan walba oo nolosha ah, sida wax iibsiga, qoyska, waxbarashada iyo xitaa xiriirka. Nambarka labaad xirfadda dhegaysiga. Qof kastoo inaga mid ah waxa uu jecel yahay inuu wax dhegaysto, laakiin dad yar ayaa dulqaad u yeesha inay si sax ah wax u dhegaystaan. Waxa waan dhegaysanaa laakiin waxaan ku dhegaysanaa amar iyo in lagu cadaadiyo inaan wax dhegaysano. Dadka badankooda gaar ahaan dhalinta aad bay ugu adag tahay xirfadda dhegaysiga. Waalidiintu waxay ka cabanayaan inaan la dhegaysan. Macallimiintu waxay maalin walba ardada isugu dhacaan dhegaysi la'aanta. Dawladdu waxay maalin walba sharci cusub u dejisaa shacabku oo aanan dhegaysan. Dhegaysigu waa xirfad muhiim ah aynu u baahannahay dhammaanteena. Waxaa la dhahaa insaanka waxa uu leeyahay hal af iyo 2 dhagood. Taas waxaa ku jirta xikmad ah inaan dhegaysiga badino oo aan hadalka yarayno. Nambarka 3 xirfadda xiriirka ama communication skills. Qof kasta waxa uu sameeyaa xiriir, laakiin qof kasta si sax ah uguma wanaagsana xiriirka ama gudbinta fariintiisaba. Weligaa ma aragtay qof mar walba uu hadlo lagu qoslo, qofna markuu si kasta isugu dayo aanan ka qoslin karin hal qof? Dabcan waad aragtay. Dadka qaar lagama caajiso inay kuu sheekayaan, halka dadka qaar aadan la joogi karin hal daqiiqo. Xirfadda xiriirka keliya ma ahan inaad iska hadashid, waa in lagu fahmaa waxa aad ku hadlayso. Fariinta aad xambaarsan tahay waxay si toos ah u saamaynaysaa qofka ku dhegaysanaya. Xirfadda xiriirka waxay ku dhisan tahay 2 dhinac. Haddii qofka ku dhegaysanaya uusan fahmaynin waxa aad ku hadlayso, ma lihid xirfadda xiriirka. Nambarka 4 xirfadda nadaafadda. Waxaa laga yaabaa inaad aad ula yaabto inay nadaafaddu ka soo muuqato qodobadeenna, laakiin nadaafaddu waa xirfad. Qof kasta uma furfurna nadaafadda. Keliya ma ahan dumarka kuwa keliya laga rabo inay yeeshaan xirfadda nadaafadda. Inuu qofka maanta ku fakaro inuu guriga ka qabto hawl nadaafad, haddana maalin kadib ka qabto ma ahan wax fudud. Laakiin dadka qaar waxa ay maalin walba si joogta u qabtaan nadaafadda caajis la'aan iyo dhibsi la'aan. Waxay la mid tahay adigoo leh xirfadda kubadda cagta ama kuwa kaloo la mid ah, laakiin inta leh xirfadda nadaafadda aad bay u yar yihiin. Nambarka 5 xirfadda hoggaamiyinimada. Hoggaamintu waa xirfad dad aad u yar ay leeyihiin. Qof kasta waxa uu isku arki karaa inuu yahay hoggaamiye, laakiin ma yeelan karo xirfadda hoggaaminta. Waxaa waajib ah in laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa xirfadda hoggaaminta. Adduunka dhib kama dhici lahayn haddii uu qof kasta fahmi lahaa qiimaha ay leedahay hoggaaminta iyo xirfadda saxan uu hoggaamiyuhu u baahan yahay. Qodobkan marka aan joogno su'aal baan daawadayaashu weydiinayaa ay ugu jawaabi doonaan qaybta kommentiga. Hoggaamintu ma wax loo dhashaa mise waa wax la barto? Fikirkaaga qaybta kommentiga ku soo qor, sababna raaci jawaabta aad bixinaysid. Nambarka 6 ee ugu dambeeya xirfadda la qabsiga. Xirfadda la qabsiga waa xirfad muhiim ah laakiin keliya ay leeyihiin dad aad u yar. Waxaad arkaysaa qof ay u fududahay inuu la qabsado dad uusan aqoon u lahayn, xitaa uusan weligiisa la kulmin. Qofna ay ku adag tahay dadka guriga la degan inuu la qabsado. Labadaani qof waxay isdheer yihiin waa xirfadda la qabsiga. Qof waxa uu awoodaa inuu qof kasta jinsiyad kasta si fudud ula qabsan karo, qofna uusan awoodin inuu dadkii u dhowaa la qabsado. Si la mid ah qofka bini'aadamka waxaa soo mara xaalado kala duwan oo nolosha ah,
marka waa inuu awood u yeelan karaa inuu la qabsan karo isbeddel kasta. Tusaale, haddii aad tahay arday dhigta iskuul oo macallimiin fara badan ay maadooyin kala duwan ay ku dhigaan, oo ay dhacday macallimiintii ka mid ahaa in la beddelo oo la keeno macallin cusub. haddii ay kuu fududaato macallinkan cusub inaad ula qabsatid si ka wanaagsan macallinkii hore, waxaad tahay qof ku fiican xirfadda la qabsiga.